saaxiibayaal soo dhawaada dhammaantiin ku soo dhawaada Dhigaal Academy iyo cashirkeennii pattern separationka oo aan ku faaqidayno kuna kala saarayno marka pattern welibana aan focus ka saarayno sida uu ku yimid qaabka uu marka reversalka uu suuqa ugu sameeyey ama qaabka uu continuationka marka uu u sameeyey mar weliba oo aad fahanto pattern separationka ama haddii aad cashirkan fahanto pattern separationka waxay noqonaysaa in aad fahantay sir aad iyo aad u weyn oo aad markaa wax badan oo kaa dahsoonaa ay ku iftiimin doonaan waxaan arkaynaa haddii aan concept guud ka qaadano ama qaab guud haddii aan u dhigno waxaan arkaynaa in trade lane-keena haddii uu sidaan noogu saaran yahay in aan jebinay ayaan arkaynaa qaab noocaan oo kaleeta 1 2 3 in aan jebinay sidoo kale halkan in trade lane aan haysano balse aanan la soo gaarin kadibna uu halkaas suuqu reversal ka sameeyey ayaan arkaynaa sidoo kale waxaan arkaynaa areadan in suuqii uu kasoo laabtay haddii aan haddana update garayno trade lane-keena waxaan arkaynaa sidaan in uu noogu saaran yahay sidaan haddii aan trade lane-keena u saarno still waxaan arkaynaa in aan sugayno in aan soo taabanno halkaas sidoo kale haddii aan halkan saarno oo aan dhahno wuxuu tegi doonaa ilaa iyo halkaa waxaan arkaynaa in uusan tegin priceku balse uu halkan reversal kasoo sameeyey ama suuqii halkan in uu pattern separation ka dhacay kadibna in uu mar labaad soo laabtay si aadan marka chartiska ugu wareerin waxaad u baahan tahay in aad fahanto waxa uu yahay pattern separationka adiga oo markaa arki doono sida ugu sahlan ee aan u isticmaalno haddaan nahay Dhigaal Academy iyo sida markaa aad ugu dabaqi lahayd analyze-kaaga iyo sida marka ay u sahlan tahay ugana faa'iidaysan kartid suuq waliba oo dhaqaaq sameynaya waxaan guda galaynaa siyaabaha markaa aad uga faa'iidi lahayd pattern separationka iyo sida uu ku imaado iyo waxa markaa dhaliyo ayaan arkaynaa waxaan ognahay dhammaanteen in patternku marka uu samaysmayo in aan helno 2 taabasho iyo 3 taabasho ama si guud haddii aan u dhigno halkan in aan haysano impulsive large correction continuation taa oo ka dhigan in aan haysano halkan bear flagan aan haysano dhexdiisa haddii aan sii fiirino haddana waxaan haysanaa impulsive correction continuation taa oo ka dhigan in aan markaa haysano bear flag within bear flag taa oo ka dhigan pattern ku dul samaysmay pattern kale oo isla asagii ah marka bear flag ku dul samaysmay bear flag ayaan halkaa markaa ka helaynaa sidaas darteed waxaan patternkeena xooga saaraynaa three-touchkiisa oo bear flag ah ayaan halkan ku qabanaynaa waxaan arkaynaa in aan haysano 1 iyo 2 iyo 3 in aan halkaa ka haysano sidoo kale in aan halkan haysano impulsive correction impulsive taa oo ka dhigan bear flag within bear flag gebi ahaanba in uu patternkan yahay pattern isdhamaystiray ayaan halkaa ku arkaynaa meeshaana in uu ka bilaaban karo markaa pattern kale ama waxa aan ku fikirayno nature-ka suuqa oo ah in aan helno impulsive correction impulsive waxa kale oo aan sugayno oo aan suuqa message ka qaadanayna ayaa waxay tahay maadaama aan haysanay impulsive correction impulsive in aan helno correction kadibna aan helno impulsive balse pattern separationku wuxuu kaa caawinayaa haddii aad weyso correctionkaas ah in jihadii selka ahayd uu suuqii sii aadi doono meeshan in uu suuqii ka iman karo reversal taa oo ka dhigan marka gebi ahaanba in uu dhammaystay patternkan loona baahan yahay marka ama suuqii uu la imaan doono weji kale oo ka duwan patternkan taa oo ka dhigayso marka halkan in uu ka yimaado pattern separationka halkan ka imaanaya marka waxaan haysanay bull flaggeena intaa ayaan asagu ku daynaynaa markii aan aragno impulsivekan waxaan markaa ka qaadanaynaa suuqa in uu la imaan doono weji kale ama pattern separation in uu halkaa ka dhici karo ama in aad aragto impulsive koowaad sidaas darteed meeshaan waxaan saaraynaa ray lane-keena ray lane-kan aan halkan saarnay waxa aan fiirinayna ayaa waxay tahay in double topkan oo suuqii reversal kasoo sameeyo annagoo markaa aanan isticmaalaynin trade lane-kan ah in la jebiyey halkan kadibna suuqii in aad buy u gasho oo aad dhahdo jihadii buydayd ayuu sii aadayaa still ilaa iyo wuxuu soo dhammaystiri doonaa in aad ku fikirto
ilaa iyo halkan ayuu soo dhamaystiri doonaa oo areadan aad ku sugayso markaa kadibna inuu cell soo noqon doono. taa marka waxay ka dhigan tahay in aad fiiriso patternkan halkan suuqa ku jiro oo ah in gebi ahaanba patternkan la dhamaystiray meeshan double topkana in uu yahay new pattern samaysmi doono ama pattern cusub in uu halkan ka samaysmi doono. sidoo kale 1 hourka ayaan ku geynayaa bal si aan si guud iskula fiirino waxa halkan structure ahaan loo tagay ama haddii aad halkan aragto sidoo kale waa patternkeeni ahaa bear flag ka waa kasoo hadalnay pattern separationkan ayaan halkan ka fiirinaynaa isagana ka dhacay oo ah meeshan double topkan waxaan arkaynaa qaabka loo tagay oo ah in structure ahaan loo tagay ayaan arkaynaa double topkeena. structurekan double topkan loo tagay waa mid aan ka hadalnay oo ah qaababka loo tago double topka iyo double bottomka qaababka markaa aad uga soo seel garay lahayd markaad hesho section 1 section 2 section 3 haddii aan trade lane halkan saaro sidoo noqonayaa si aan u helo section 2ga in uu gebi ahaanba isdhamaystiray ama tijkiisii soo samaystay taana waa wax saxan oo mar waliba trade lane-kaaga haddii aad halkan dhigto oo aad aragto in section 1 section 2 section 3gaaga ama sidaan oo kale uu kugu saaran yahay kadibna la jebiyey waxaad arkaysaa marka in aad update u baahan tahay oo aad saarto structure-ka meesha uu markaa rejectionka ka imaanayo. marka waxaad arkaysaa in saddexdaada taabasho ee ascendingka lagu tagay double topkaaga in uu isdhamaystiray taa oo ka dhigan marka qaababka cashirka double topka loo tago ama double bottomka trade lane-ka iyo siyaabaha loo jebiyay aan uga hadalnay naqshadii in aad haysato in sidoo kale aad haysato halkan in ay tahay pattern separationka adigoo isticmaalayo double topkan ayaad focus ka saaraysaa waana muhiimadda ay leedahay in patternka aad focus ka saarto taa oo ka dhigan marka in aad qabanayso 90% rulekiisa mar waliba waxaan dharnay mini ascendingka iyo large ascendingkaba waxa aan la soconayna ayaa waxay tahay 90% rulekiisa in aan markaa qabanno taa oo ka dhigan qaacidadaas adiga oo isticmaalaya in aad qaban karto 600 oo biib in aad qaban karto 640 biib ayaad sidaa ku qaban kartaa. sidoo kale halkan waxaan arkaynaa marka 90% rulekiisa uu buuxiyey suuqa in uu isaguna dhiibay pattern separation in uu dhiibay taa oo cajiib ka dhigayso in haddii aad fahanto pattern separationka wax badan inuu kaa caawin doono. sidaas waxaad arkaysaa inaan haysanay impulsive correction impulsive sidaas darteed ray lane-keena mar waliba waxaan ku taagaynaa raygeena ah meesha uu kasoo baxay correctionkaas taa waxay ka dhigan tahay in aan haysano halkan 1 iyo 2 taa oo ka dhigan priceku in aan halkan ka fiirinayno qaabka uga soo reversal gareeyo ama meesha in aan rejection ka helno candle formation in aan ka helno qaabka markaa candlekaas rejectionka inaan aragno iyo in structure in aan helno markaa noo confirm garaynayo suuqii in uu markaa soo dhici doono jaraselka soo aadi doono. sidoo kale waxaad arkaysaa double topkaagan oo mini double topkaagan halkan uu pattern separationka ka dhacay sidoo kale in structure ahaan loo tagay ayaad arkaysaa taa oo ka dhigan marka suuqii inaad haddana ku lug yeelan karto impulsivekan in uu soo dhaco oo aad qabato impulsivekan. sidaas darteed waxaan arkaynaa haddii aan trade lane-keena halkan ku taagno oo aan fiirino qaabka markaa uu ku yimid iyo sida halkan pattern separationka aad ugu isticmaashay reversalka halkan patternkan kale oo aan focus ka saarayno waxaan u baahannahay marka in aan iska tirno ray lane-kan maadaama 90% rulekii aan buuxinay ascendingkan aan ku manage garayna ku qabanay taa oo ka dhignayd marka in aan patternkan xooga saarno. waxaad aragtay in aad markaa adigoo pattern separationka adeegsanayo in aad qabsatay ama aad ka faa'iidaysatay structurekan iyo cellkan impulsiveka ah in aad sidaa ku qabatay. waxaa kale oo aad halkan gelaysaa impulsive correction impulsive oo bull flag ah meeshan marka waxa aad targetkaaga marka uu noqonayo ama targetkaaga aad ku fikrayso ayaa waxay tahay in aad hesho correction kadibna in aad hesho at least haddii aan soo zoom garayno on 4 hour ka tagno meeshan nuxur ayuu ku leeyahay cashirka waxaan rajaynayaa in aad halkan soo fiiriso oo aadan jiha kale aadan markaa eegin ama aadan fiirinin si aad uga bogato wax meeshan looga hadlayo. haddii aan gebi ahaanba aan delayed gareeyo si aan kuu tuso waxyaabaha fikirka kugu dhalinaya
in aad targetkaas fiiriso balse aad ignore garayso pattern separationkii dhammaanba halkan kasoo dhacay waxaad arkaysaa dad u analyze garaynaya markaa suuqii inuu halkaa marka aadi doono taa oo ka dhigan marka pattern separationka gebi ahaanba in aysan ku baraarugsanayn oo ay markaa u baahan yihiin in ay fahmaan waxa uu yahay ama uu la imaan doono pattern separationka haddii aan jarno priceka areadan haddii aan jarno for example wuxuu kugu yaala trade lineka sidan oo kale waxaad leedahay section 1 section 2 section 3 sidoo kale candle shape-kan halkan aad ku haysato oo ah morning star-ka in aad haysato impulsive correction ayaan sugaya kadibna at least ilaa iyo trade linkeyga ayaa lasoo dhamaystiri doonaa taa oo ka dhigan in aad fikirkan haysato balse pattern separationka uu kaa maqan yahay waxa halkaa ka dhici doono ayaa muhiim ah waa iska tiraynaa trade linkeena waxaan wadanaynaa cashirkeena tan oo ay tusaale in aan kugu tuso targetkaagaas koowaad inta aad fiirinayso waa inaad adigan ku baraarugsanaato pattern separationka meesha ka dhacayo at least in aad ku fikirayso xataa inaad halkan hesho balse gebi ahaanba intiiba aysan dhicin uu halkaa pattern separation ka yimid maadaama mar waliba iyo marxalad waliba aan halkan kasoo arkaynay in ay ahayd pattern separation ama haddii aan si guud u fiirino 1 minute pattern walba iyo sidii aan usoo marnay oo aan marxaladiisa ugu dhaqannay waxaad arkaysaa sidoo kale in aan halkan pattern inuu ahaa correction in lagu jebiyey in bear flag within bear flag inaan helna halkaas bear flag dul samaysma bear flag sidoo kale halkan double top-ka iyo naqshadii loo tegay ayaan ogeyn oo aan markaa isla soo sawiranay waxaa kale oo aad aragtay double top-kan iyo sidii markaa loo tegay haddii aad cashirkana gadaal ugu laabato sharaxitaankeena iyo wax walbana aad heli karto intaa ayaan uga soo gudbaynaa pattern separationkii halkan ayaan xooga saaraynaa oo aan baleegaraynaynaa priceka waxaan arkaynaa isla markiiba in uu soo dhacay ee uu samaynayo haddii aan hore ka tagno in uu samaynayo aan arkaynaa hadirtaan middle section in uu samaynayo taa oo ka dhigan in still aad fiiriso suuqa waxa uu ku dhaqmayo iyo markaa waxa imaan doono ogow meeshan waxa aad ku fikirayso marka muxuu noqonayaa middle sectionka mar waliba uu samaysmo khasab ma aha in la buuxiyo double topkiisa in la buuxiyo muhiim ah sababtoo ah meeshan waxaad arkaysaa in uu yimid impulsive correction waxaad sugaysay continue in impulsive kale uu yimaado jihada bayda uu suuqu sii socdo balse waxa dhacay waa rejection caadi ama retrace ayaa dhacay impulsive correction impulsive ayaa dhacay suuqi wuu laabtay mar labaad kadibna halkan ayaa wuxuu kasoo sameeyey pattern separation taa oo ah gebi ahaanba in aad kii hore patternkii hore sidiis in aad ku dayso oo aad double top-kan in aad diiradda saarto oo markaa ay tahay in halkan aad ka heshay pattern separation patternkan ahaa jihada bayda ahayd inaad usii qaadato gebi ahaanba in uu patternkan ignore gareeyey meeshan in uu ka yimid pattern kale oo ah mini double top taa oo ka dhigan pattern separation in uu halkaa ka dhacay waa baleegaraynaynaa priceka waxaana fiirinaynaa qaabka uu markaa kusii dhaqmo waxaad arkaysaa middle sectionkiisa in uu wato priceku qaab noocaas oo kaleeta in uu dhacay haddii aan jarno si aan iskula fiirino lacag kale oo aan markaa diiradda saarayno waxaad arkaysaa sababta iyo markaa qaabka uu pattern separationku ugu yahay fure aan markaad trade garaynayso at least double bottomkaas in lagu soo laabanayo ay tahay keliya in aadan fiirinin jihadii bayda ahayd in uu suuqii sii aadi doono meesha aad ka sugaysay in uu tago areadan ama sii jabsado trade lineka meesha hadda aan soo dhignay in aad helayso pattern separation aad iyo aad mar waliba cajiib u ah sidoo kale halkan waxaad arkaysaa structure ahaan in loo tegay ayaad arkaysaa oo qaabka halkan loo tegay pattern separationkaga wuxuu noqonayaa in sidoo kale aad hesho halkan double top structure ahaan loo tegay ayaad arkaysaa taa oo ka dhigan in aad qaban karto kana faa'iidaysan karto pattern separationkaas in intaan oo beep marka inaad qaban karto at least ilaa iyo double bottomkaaga 372 beep aan isla tagno lacag kale oo aan kugu soo gabagabayna kuguna tusayo furaha ama markaa fursadda ugu weyn ee markaa in aad fahanto ay u baahan tahay
inay tahay pattern separationka haddii uu kaa qaldan yahayna still wax weyn inay kaa qaldan yihiin. waxaan tegaynaa lacagta euro USD. euro USD maxaan ka filaynay waad ogeydeen meeshan in double uu soo dhammaystiro price-ku double topka uu soo dhammaystiray price-ka. haddii aan gebi ahaanba fiirino price-ka halkan waxa uu ku dhaqmayo, waxaan isla fiirinaynaa pattern separationka halkan ku jiro. sidee ayaad marka uga faa'iidaysanaysaa adigoo isticmaalaya pattern separationka iyo markaa in aan isla fiirino waxa kale ee halkan ku jira. waxaan isla fiirinaynaa qaabka markaa price-ku uu halkan ugu dhaqmay iyo sida markaa pattern separationka aan u isticmaali lahayn. halkan waxaan arkaynaa inaan haysano 1 iyo 2 taa oo ka dhigan in aan patternkan expandingka in aan isticmaali karno section 1 section 2 sidoo kale in aan haysano price-ku in uu halkan yimid oo aan haysano 1 2 3 trade line haddii aan ku taagno waxaad arkaysaa inaan haysano 1 2 3 sidoo kale maxaa noo confirm garaynay price-ka halkan in aan markaa ka buy garayno oo aan jihada buyda markaa suuqii in aan u qaadano. waxaad arkaysaa in descending ahaan uu u yimid ayaad arkaysaa taa oo ka dhigan saddexdaada taabasho ama corrective-kaaga hoose in aad heshay. wuxuu ku xaqiijinayaa 1 2 3 correction in aad ku tagtay taa oo ka dhigan marka jihada buyda ahayd in aad suuqa u gasho. haddii aan jarno oo aan areadan fiirino waxaad arkaysaa meeshan aan ku sugannahay hadda oo areadan ah. sidee ayaan marka ugu aaminaya ama kalsooni anigu dheer aan uga qaadanaya anigoo markaa pattern separationka isticmaalayo ama markaa pattern weliba si markaa focuska u saarayo gooni ah. waxaan arkaynaa in descendingkeena aan focus ka saarnay corrective ahaan in uu u yimid trade line-keena taa oo ka dhigan haddii aan qaabkan u isticmaalno in aan haysano ascending haddii aan ka dhigno in aan qaybta kore oo kale aan ku samayno 1 iyo 2 in aan haysano 3 sidoo kale ascending in uu ku samaystay 1 iyo 2 iyo 3 4 waxaan arkaynaa marka risk entry meel aan ka soo qaadano oo aan jihada sale-ka ahayd aan usoo qaadano taa oo marka kugu dhiirigelinaysa top of this region markaa joogta in aan qaabka focuska u saarno patternka. sidoo kale waxaad arkaysaa in meeshan bottomka markaan joogno qaabka in aan u samayn karno waad risk entry halkan uga qaadan karto. targetkaagu halkee ayuu noqonayaa pattern separationka halkan waa meesha uu marka ka dhacayo oo ah in aad baraarugsanaato kuna faa'iido ugana fogaato khasaaraha taa oo ka dhigan in aad ilaa iyo areadan aad suuqii la soconayso buyda waa midda koowaad aad fiirinayso balse halkan in ay tahay double topkaagan price-ka in aad ku sugto uu kuu yimaado kadibna ay tahay meel pattern separationku uu ka dhici karo oo ah markaa in aad suuqii jihadii sale-ka ahayd uu kusoo aadayo oo aysan ahayn keliya halkaa in aad fiiriso. waxaan arkaynaa marka in areadanna uu ka dhacay pattern separationka in price-ku uu tagay kadibna inaad heshay rejection candle waxaad heshay waa flag taa oo ka dhigan tahay flagga inaad qaadan karto. why marka halkan haddana aan uga helaynaa pattern separationka fadlan waxaan rajaynayaa in aad arki karto kana faa'iidi karto wax weliba oo suuqa ka dhacayo iyo pattern weliba sida aad focuska u saari lahayd marka ugana faa'iidaysan lahayd pattern separationka. halkan waxaad arkaysaa in large bear flaggan in aan haysano ama large correctionkan in aan haysano ayaad arkaysaa sidoo kale impulsive correction in aan haysano. qaabka loo tegay ayaad fiirinaysaa iyadana oo ah in corrective ahaan gebi ahaanba in loo tegay ayaad arkaysaa taa oo ka dhigan jihada sale-ka ahayd in aad suuqii usoo qaadan karto adigoo isticmaalayo marka pattern separationka ama impulsive correction impulsive large correction impulsive correction impulsive inaad sii sugayso taa oo ka dhigan marka qaabka loo tegay 1 iyo 2 iyo 3 inaad haysato 1 2 3 inaad haysato halkan sidoo kale inaad haysato bear flag within bear flag inuu ka imaan doono. waxaan rajaynayaa in aan si waadixsan oo nadiif ah kuu tusay kuguna kala dhigdhigay pattern separationka iyo sida aad markaa uga faa'iidi lahayd. haddii aan si kale u dhigo qaabka trade line-ka ay dadka qaar u sawiraan ama ayagoonan isticmaalaynin pattern separationka haddii uu qaabkan kugu yaalay
euro USD aysan sidaan ugu sawirnayn ama entry waliba aan ka qaadanay iyo si waliba aan uga faa'iideysanay waxaad u baahan tahay inaad experience yar ayaa kaa dhiman oo aan kuu dhammaystiri doono hadduu ilaa yidhahdo haddii aad still advanced tahay balse halkan waxaad arkaysaa trade linka dadku qaar inay sidaan u sawirayaan oo aysan focus ka saaraynin pattern separationka sidan waa sax trade linkaaga saddex taabasho 1 2 3 in aad sawiran karto balse sidee ayaad entriyadaada u heli kartaa oo aad markaa suuqa pattern walba intaad awoodda saarto ama focus ka saarto sidee ayaad uga ganacsan kartaa taa waa muhiim sidoo kale haddii aad tiraahdo halkan waxa ka dhacayo waa 1 iyo 2 sidan ayaana trade linkiga u dhiganaya waxaan ku sugayaa price inuu halkaa yimaado waxay ka dhigan tahay marka in aad u baahan tahay in pattern separationka ay indhahaagu qabtaan mar walibana aad aragto waxa suuqa ka dhici doono iyo messageka suuqa uu ku siin doono waxaan rajaynayaa aad ka faa'iiday wax badanna aad ka fahantay pattern separationka iyo sidii aan markaa ula macaamilno ula dhaqanno una fiirino marxalad waliba iyo xaalad waliba uu ku yimaado iyo qaabka markaa aan uga faa'iidno waxaan rajaynayaa in aad wax badan ka faa'iiday fadlan waxaan kaa codsanayaa inaad chartska tagto imtixaan aad iska qaado amaba in aad isku daydo in aad soo hesho kalana saarto baatanada in aad kala saarto waa inoo iyo cashirka xiga asalaamu calaykum waraxmatullahi